markaasi kadib waxa ay booqdeen deegaanka Dar es Salaam oo ka tirsan gobolka Mudug ee degmada Galdogob halkaasi oo ku soo dhaweeyeen mas'uuliyiinta deegaankaasi waxayna gurigiisa ku booqday Suldaan Cabdirashiid Muuse Shirafrey oo ka mid ah ismada Puntland Harsima Sharafeed ayaa suldaanku ugu sameeyay gurigiisa wafdigaasi ballaaran ee ay hogaaminayeen wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda Puntland iyo wasiirka maaliyadda ayna weheliyeen wasiirka haweenka wasiirka xogeenka waxbarashada xildhibaan ka tirsan federaalka dowladda federaalka ee Soomaaliya gudoomiyaha gobolka Mudug gudoomiye ku-xigeenka gobolka Mudug iyo mas'uuliyiin kale waxaana kadib soo noqoshadoodii magaalada Gaalkacyo ujeedada safarkooda faahfaahin ka bixiyay wasiirka xogeenka wasaaradda waxbarashada ee dowladda Puntland kana mid ah guddiga habeynta hay'adaha dowladda Mukhtaar Maxamed Xasan oo loo yaqaano Mukhtaar Jeete waxaan aad ugu faraxsanahay inaan maanta noo soo gabagaboobay safarkii aan ku aadnay degmada Galdogob iyo nawaaxigeeda oo aan ugu korgalanay haddaan nahay guddigii dib u eegista maamulka gobolka Mudug oo hogaaminayay wasiirkii arrimaha gudaha iyo wasiirka maaliyadda iyo wasiirka arrimaha qoyska safarkaas oo qaatay muddo maalin ah oo aan ugu korgalanay arrimaha amniga sare u qaadista dakhliga hoos u eegista maamulka iyo in la kulano deegaankii iyo dadkii degmada ku soo jeeday oo aanu cabashooyinkooda iyo tabashooyinkooda iyo himilooyinkoodaba aan darseennay aan rabno ilaahay idankiis inaan madaxweynaha iyo dowladda u gudbino si wax looga qabto oo ka mid tahay gobolkii oo guud ahaan loo darsiyay wadcigiisa safar runtii wuxuu ahaa aad u qurux badan oo sida gudoomiyuhu sheegay oo aad maaragtay dadkii deegaankuba ugu heelanaayeen dowladda cusub inay la shaqeeyaan deegaan waxaan soo aragnay runtii aad u habaysan oo aad dadkiisu isugu tashanayaan oo dadkiisu aad Puntland u rabaan iyo nidaamkeeda aad bay noo farxad gelisay waxayna nasiinaysaa dhiiranaan zaa'id ah inaan anagu ku noqnoqono waan safarkii waxaan u maleynayaa labaad oo wasiirka arrimaha gudaha meesha ku tago mana noqon doono ilaahay idankii safarkeena ugu dambeeyay waxaan ka soo qaadnay waxaan kala soo kulannay dib baan ugu celinaynaa isbedel dhab ah ayaanu ka rabnaa waxayna ka tarjumaysaa siyaasadda dowladda ee ah in cirafyada iyo meelaha laamiga ka durugsan iyo dhammaan daafaha Puntland laga howlgalo oo adeegyada la gaarsiiyo mid waxbarasho mid caafimaad mid amni wuxuu ahaa runtii safar aan uga mahad celinayna reer Galdogob soo dhaweyntii waxaan idin siiyeen Maxamed Cabdi Puntland TV Gaalkacyo